dhowrkii maalmood oo la soo dhaafay roobab xoog leh oo ka da'ay deegaanada Hiiraan iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya webiga Shabeelle wuxuu u sii socday kor wuxuu gaaray dhowr maalmood dhowr habeen intii 4 maalmood laga joogo 8 mitir iyo 20 daqiiqo 20 millimeter taasoo dadka webiga yaqaan waa la socdaan webiga qarkuu jibiyey biyihiina sidaad aragtaan hadda dhulkii caadiga ahaa iyo webiga lama kala yaqaano fatahaadda aad aragteen oo intaan la eg ayaa magaaladii ku habsatay in ka badan 100,000 oo qofood ama 26,000 oo qoys ayaa ka barakacay biyahaas dadkaas badankoodu waxay wataan caruur waayeel iyo dad xanuunsan sida gudoomiyaashu ay u sheegeen magaalada markii horeba xaaladdeeda dhaqaale waa liidatay haddeertaan aan idila hadlaayo magaalada korontada waa ka maqan tahay systemkii EBC-duna ma shaqaynayo magaalo marka systemkii EBC-duna uusan shaqaynayn lacagtii shilin Soomaaliga ahna aysan ka shaqaynayn waa dareemi kartaan culeyska ay la eg tahay xagga nolosha iyadoo saas ula daalaa dhacayso ayay masiibadana ku habsatay baahida ugu weyn oo hadda dadku ay qabaan markii aan soo kormeernay waxa waaye xagga biyaha iyo xagga nadaafadda ama musqulaha labadaas arrimood oo asaasi ah oo caadi dadku isaga haysto laakiin markii aysan gacantaada ku jirin dhibaatadeeda waad arkaysaa waxa kale ayaduna baahi weyn loo qabaa gurmad in loo fidiyo dad tuulooyinka iyo xaafadaha qaarkood magaalada ku go'doonsan walaalaheen amisom ciidamada ka jooga dowladda Itoobiya iyo dowladda Djibouti aaday runtii ay noola shaqeeyeen saacadaasaan idila hadlayna xaafadaha ayaga iyo ciidamada qalabka siga iyo ciidamada booliiska Hirshabeelle waxay ku jiraan gurmad ay xaafadaha ka soo rarayaan dadkii ku go'doomay dadkaas markii la keeno banaanka wax nolol oo ka soo horeysa ma jirto run ahaantii masiibada halkan ka dhacday waa masiibo ka awood weyn maamulka Hirshabeelle